mustaqbalkiisa iyo haatanba marka hore waxaan isku raaxsanahay dalka waxaa ka jira abaaro baahsan oo dalkoo dhan camimay oo aad u culus ilaahay waxaynu ka rajaynaa abaarta inaga dulqaado inagu bini aadam baynu nahay wax kastaynu qabanaa waxba tari maayo ilaahay bay gacantiisa weyntahay ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa inuu ummadda dhibaatada ka dulqaado oo ilaahay roob khayr qaba madar khayr qaba ina siiyo dalkii dadkana inoo barakeeyo taasi waa naga duco waana ka midaysana laba qodob baan isla soo qaadnay mid wuxuu ahaa abaarta iyo doorashada mid waan isku raacsanahay doorashada xukuumadda xisbiyada dadweynaha dhammaanteen inaynu u guntano oo inaan maanta waxba kala hadhin oo loo midoobo oo fadhiga loo kaco abaaraha oo dadkaa loo gargaaro waa ka midaysana waxaan filayaa qof wal oo somaliland u damirleyn inuu taa nagala midaysan yahay taasi waa inoo ballan dhammaanteen waxaana hormood ka noqonaya xukuumadda warbixinta iyada xukuumadda intaanu ka warhaynay xisbigana waxa weeye xukuumaddu horena dadaal badan bay uga gashay hadday ceelo la qodan tahay qaar la hagaajiyo hadday tahay gurmad raashin hadday tahay gurmad dhar dhaxaneed dadaal badan baa la galay laakiin dee baahida mar walba ka weyn haddana intaan ognahay xukuumadda waxa u qorshaysan inay xoogga ugu badan la saaro ceelo la qodo haddaba waxaa la qorsheynayay in booyado badan la iibiyo waayo biyaha la dhaaminayo biyihii kuwii kareeya ka qaalisnaa in booyo badan xukuumaddu weygan iibiso oo meelaha dadka furfur loogu dhaamiyo in la qoondeeyo miisaaniyad dadka xoolu ka baxeen ee lagu soo ururiyo meelaha biyaha in raashinkii dhowrka bilood soo socdana inay xukuumaddu qoondayso miisaanadeeda ugu jirtana waa iyadana waa jirtaa intaasina waa iga war oo in xukuumaddan inteeda weliba xisbiyo xaafid iyo mucaarid dadba waa ku daba joogaynaa xukuumaddu inay hawsha talooyinka ay qaaday weliba sii xoojiso doorashada baasha xukuumadda saasaan uga heshiinay iyo mucaaridba in loo gurmado abaaraha mucaaridku waa nagu dhaliileen xaqna way uleeyihiin inay nagu sii dhaliilaan ka kacaay oo naguwaabiyaan xaq bay leeyihiin waa laga qaadanaya ta doorashada laba ra'yi ayaan maanta isu keennay annagu haddaanu xukuumadda xisbulxaakimkii nahay waxaanu istaagnay mowqifka ah waxa inoo haya doorashada wakhtiga la goynayo iyo ka hadalkeeda guddiga doorashooyinka komishanka qaranka iyagaana xaaladda qiimeyntooda iyagaana ku dhawaaqi kara sidaa hala yeelo kaasaan u hoggaansamanaa haddaanu nahay xisbi xaakimka iyo xukuumaddaba markaa xilkaa aanu dayno nimanka komishanka wixii raayana iyaga ha lagu kordhiyo qolada kalena tugtaa ka duwan bay keenaan waananu ku ixtiraamaynaa waana dow xisbiyadu mararka qaarkood inay raayo kala duwan kala qaataan waxaanu se isla ogol lahay dhammaanteedu in aynu ka talino wixii dalkeenna wadanayo ummadeenna mar walba inay ta koobaad noqoto mas-uuliyiintii qarankeenu nahay odayaashii axsaabta madaxdaa baynu nahay ummaddu inagayna soo eegaysaa waa inay mar walba waa laisla heli doonaa see la yeelaa waa wax la iman doona laakiin mas-uuliyadda marar baa loo midoobaa wixii dhibaatay qaranka inaynu wixii dalkeennaas wax u taraaya iyo dadkeenna uun aynu arrintaas u keenno taana waa isku kalsoonahay waana ku niyadsannahay marka labadaa mowqif iyaguna mowqifyadu sheegi annagu waxaanu istaagnay waxalle wixii doorashada ku saabsan ra'yiga ha lagu ururiyo komishanka go-aankan iyagaan ka sugo annaga xukuumadka waa dhaaf kala wey aad iyo aad ba mahadsantii wasalaamu calaykum wax walba waxaanu ka hormaraynaynaa abaarta gurmadkeeda horena waa loogu jiray haddana waa lagu jiraya annaga waxaana loogu sheegaynin waxa aynu tirageynaa howlaha qaranka waa la kala leeyahay annaga waxaa leenahay wax walba ha laga hormariyo abaarta horena waa ugu jiray qola aan labadii bilood u dambeeyey diyaaradii hodheer yurba ka degin baa nagu canaanasa looma gurmanay abaartii annagu dadka waa dhex joognay dacalna dilacna waa wadnaa annaga anigu walba ugu xogaarsan waa idinku raacsanahay inuu abaarta wax walba uga hormarino hase yeeshee arrimaha qaranka ee howlaha badan hay-adaha kale leh waxaynu u baahannahay wixii ra'ayan lahaay dee in la mariyo komishanka in komishanka laga guura ma haddee annagu taasaan taagan diyaarna waan u nahay xukuumad iyo xisbiga marnambaroo baanu ka nahay gurmadka abaarta gudoomiye waxaa la leeyahay xukuumaddii madaxweyne axmed sinaayo wasiiro badan oo ka mid ah muddo kordhin bay dalbanayaan idinkuna laba mowqif baad kala duwateen waxaa kala soo baxay warar sheegaya in madaxweyne axmed sinaayo dalbaday in xilka uu ka dago siilicu ku wareejiyo adigana taasaa waxa la walaac kugu haysa maxaad ku leedahay warkaas waa warka wariyaashu ku sheekaystaan mafarishta madaxweyne kursigiisu joogayaa waa madaxweynena doortay maxkamad baa xukuntay in la jaro maalintaa doorashada isagu ma bedeli karo waa ninkii lagu eedeynayo wuu kororsaday ee qolada mucaaradkii waxaad uga durbaana ka tubeen ee maxkamadda lagu gooyey waxa loo wixii dantu qaran ku jirtaa un baa la yeelaya oo laga tiraya iyadoo loo marayo hay-adaha qaabilsan number one waxaa ka dadkeena soo badbaadina saynu ugu gurmana yaanina taa laga waayo
faysal goor raaci oo ka maqlay soo yar maraya dadkan wada gurman wassalaamu calaykum